طبعا خطبتي مهرين خطبتي حكومة بنتلاند كسو بندقيسي وخبط كذا وحالك كأخري وزير في ورفاقتا يلو قرالة يلو مقالة نوادا وطن arrimaha Soomaaliya oo dadku aad u xiiseynayeen waxa ku filan intii ay ka yiraahdeen senator Farole iyo madaxweyne Xasan Sheikh iyo madaxweyne Axmed Madow waxaan rabaa kaliya inaan halka uga mahadceliyo dhammaan dawladda iyo shacabka Puntland gaar ahaan howlwadeennada xukuumadda وسريان وزير وحجينا وزير الدولياشة أجاسمياشة جودي وحاها غيبها يضمان شغالها حكومة بنتلاند إيو برلمان ودقيس الجوكتدا إيو مسؤولين تيسا إيو قرصوك بنتلاند لامها دولة بنتلاند إيو هولودينا دولا shaqadii muddadii 2 sano ahayd soo qabsoontay gaar ahaan sanadkii u dambeeyay waxaan runtii markhaanti ah in dadaal badan iyo waqti badan la geliyay oo aan wax la hakran wixii la kari karin waxqabadka halka laga sheegay dhowr meelood baan rabaa inaan xuso oo runtii u baahan dadku inay aad isha uga hayaan waxaa warbixinta ku jirtay 25 kilomitir oo jid ah oo si casri ah loo dhisay iyo 100 kilomitir oo dayactir ah runtii waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay burburka kadib jid si casri ah oo dhammaystiran loo dhiso oo aan hay'ad iyo dawlad kale aysan bixin dawladda Puntland ayaa bixisay waxaas oo runtii wadada meermeer oo runtii khatar ku ahayd isku socodka iyo jidkii hadda 5 kilomitir maraya ee daahir ergaabo ku socdo oo aan rajeynayno maalmaha soo socda inuu 30 kilomitir gaari doono 80 kilomitirna uu gaari doono laakiin midka magaalooyinka kale laga dhisay magaalooyin badan oo ka mid ah Puntland waxaa dhisay Puntland iyo shacabkeeda oo isku tashaday waxay muujinaysaa guul weyn waxaa kale oo iyadana farxad ah oo in la xuso u baahan dekada garaaca oo iyaduna dawladda iyo maalgashiyaal Soomaaliyeed ay dhiseen oo iyadana la rajeynayo inay furto oo mashaariic horumarineed oo mug weyn oo aan ajnabi uusan shaqo ku lahayn waxaa kale oo iyadana sharaf ah in mashaariic horumarineed oo maalgashi ah oo dalal ajnabi ah aan rajeynayno inay aaminaan Soomaaliya iyagana qaybna ay bilaawata qaybna ay socoto waxay maalgashan doonaan korontada waxay maalgelin doonaan oo casriyeyn doonaan garoomada waxay ku jiraan inay warshado dhisaan waxaan rajeynaynaa in mashaariic fara badan oo horumarineed dadka u ah laakiin maalgashi ah inay iyagana hirgalaan intaas inay dawladda Puntland u hirgasho 3 qodob baa saldhig u ah qodobka ugu muhiimsan waxa weeye maareynta maaliyadda oo runtii dawladdan ay waqti badan gelisay si loo helo howlwadeenno guto waajibkooda oo mushaharkooda iyo gunooyinkooda iyo adeegooda joogto noqdo waxa oo ciidan iyo shaqaale rayidba ah waxaa kaloo isagana gundhig u ah nabadda maxaa yeelay waa la kala horumarin karaa nabadda lagama shaqayn kar lahayn haddaan dhaqaalaha iyo maaliyadda ay iskunaan lahayn sidoo kaleeto horumarku lama hirgelin haddaan nabad iskunaan lahayn isbeddelka guddiga habeynta ciidamada ay ka qabteen ciidamada Puntland runtii waa wax mudan in la ammaano oo lagu faano oo dhiirigelin u noqon karto Soomaalidu inay qabsan karto waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo ciidamadaas mushaharooyinkooda la kordhiyay tababarkooda agabkooda dareyskooda hal shilin oo ajnabi taas lagu jiro dawladda Puntland waan ogahay meelo badan baa ciidamada tababar laga siiyaa Puntland waxay ka heshay oo ciidankaas annaga hadda aan sheegayno kumaana darin ciidanka BSF-ta iyo BNPF-ta ودولة الإمارات هي مريكان كويسة جارة متوفر جرين
ciidamada aan sheegayno oo tababarna kuwa ma aha oo ciidamadii traditionalka ah ee daraawiishta iyo booliiska dowladdu sida tooska ah ay u maamulaysa kuwa kale ee Soomaaliya inteeda badan ka hirgalay waxaa galay dhaqaale dowladeed iyo dalal aan saaxiibanahay inta badan marka iyadana runtii waa guul weyn oo aan la filayn inay hirgalayso laakiin alxamdulillah lagu guuleystay dadkii ka shaqeeyay waa mahadcelin waxaan kale oo rabaa runtii inaan halka uga bishaareeyo isbeddelka maamulka maaliyadeed markaan leeyahay gudub buu ahaa waxa aan qabanaynay haddaysan jir lahayn inaan maaliyadda hagaajino ma noo suuroobeen maxaa yeelay kharashka ku baxaya ciidanka dib habeyntiisa kordhinka mushaharooyinkiisa ma suuragelin sanadkii 2020 waxaan ku guulaysanay iyo 2019 inaan kor u qaadno mushaharooyinkii golayaasha dowladda oo ugu muhiimsanaayeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaan waxaan kor u qaadnay 200% wax ka badan 3 boqoladeen ayaan ayay mushaharka wasiirku wuxuu ahayd $800 markaan nimid $300 balagaas mushaharka golaha wakiiladu wuxuu ahaan jiray 800 iyo xoogaa laba boqsada gudooy markuu laga daro 2500 balagaas ciidamada $700 baa lagu yimid maanta 250 maanta waxaa halka laga dhawaaqay in shaqaalaha rayidka bisha January ay shaqaale u kordheen oo qofkii ugu yaraa ee mushaharkiisa ugu yaraa ee nadaafadda iyo ka shaqeyn jiray uu 110% ugu kordhi doono ilaa idankiis marka ay soo baxdo waxay noqon doontaa wax ku filnaan doona shaqaalaha waxaa kaloo lagu guulaystay in la sameeyo grade-ka shaqaalaha ma aha waxa la kordhaya wuxuu noqon doonaa mid walba wuxuu yeelan doonaa kuwana grade 1 iyo 2 laba mar bay dalici doonaan kuwa saddex mar bay dalici doonaan waxaan iyadana u gudageli doonaa in grade-kaas iyo basic salary-ga way waxaan ka hadlayno aan gunooyin ku jirin runtii waxaan dhihi karaa arrintaas waa arrin iyadana bogaadin mudan dadkii ka shaqeeyana ay mudan yihiin in abaalmarin la siiyo aan rajeynayno dadkaas qaybo ka mid ah halka aan ka abaalmarin waxaa lagu guulaystay bangiga Puntland isbeddel la taaban karo waad aragteen masuuradii ku jireen daar 4 dabaqa oo si casri ah loo qalabayn doono oo kulligeed electronic ah oo systemka maaliyadda oo dhan hadda wuxuu ka guuray manualkii Puntland laga soo bilaabo caluula dakhliga soo gala isla saacadaas xarunta bangiga dhexe garow waa laga daawadaa iyadana wuu hirgalay iyadana waxaan rajaynaynaa inay xarunta markay dhammaato iyada qalabkii wuu shaqaynayaa laakiin kulligeed inay computers ku shaqayn jirto iyo system maaliyadeed oo sax ah waxaan iyadana ku geli jirnaa inaan revenue kor u qaadno haddii ilaahay idin ka dhigo waxaan runtii bogaadinayaa nidaamka maaliyadeed oo dhan marka la isku xiro isbeddel ku dhacay waxaan hadda rabaa iyadana qodobka saddexaad oo isna aan highlight garay waxa weeye nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan waxa ka qabsoon waan uga mahadcelinayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo inta kale ee gacanta ka qaadato oo maanta haabanaysa inay bilaha soo socoto doorasho qof iyo cod ah oo degaan oo 3 degmo ugu horreeyay la qaban doono oo 10 urur siyaasadeed ay ku tartami doonaan iyadana waxa weeye waa guul aan rajaynayo inay tahay in la xuso oo milestone kaleeta waxa hadda qabanay ewerka baana bilaabay waxaan uga mahadcelinaynaa madaxdii naga horreysay meeshay soo gaarsiisay intaba waxay u baanaayeen inaan dhammaystirno inta annaga naga aadan tadawurka go'aano aan hore loo qaadan oo laga soo shaqeeyey oo dowladdan qaadatay way jirtaa dhammaadkeedu laakiin hadda ma aha waa wax sii socon doona waxaan rajaynayaa inay dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba la ilaalin doono nidaamka dimuqraadiga iyada oo qof iyo cod la isdooran doono ayaa waxaan ballan qaadi doonaa 8 Janaayo iyadan inaan la dhaafi doono xilligaan lagu qaban doono haddii ilaahay ka dhigo qodobadaas waaweyn ee muhiimka ah runtii Puntland waa ay ku ammaanan tahay waxyaabo badan oo aan ka gaabinay way jiraan oo aan rajaynayno inaan 2021 aan xusno waxaa kaloo muhiim ah dhinaca waxbarashada oo runtii hay'adda UNICEF ay qirtay
xilligii COVID-19 ka jiray nidaamka waxbarashada ee online-ka ah in ay Puntland Africa oo dhan ay number 1 u gashay iyadana waxay ahayd tallaabo qurux badan oo runtii in lagu dayo u baxay oo ardaydii aysan ka joogsan waxbarashada oo la dhiirigeliyey in maadooyinkii oo dhan fasalka 12 dib loo daabo waxaa sharaf ah maadooyinkaas waxaa laga qaadan jiray sidaan xogta ku hayo jigjiga iyo inta af Soomaaliga wax ku dhigata jigjiga xataa waa laga dhigaysan jiray xayr sidaan ka warqaba jigjigo manaahijta Soomaaliga lagu qaata iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida oo dhan iyo dad badan oo tacliinta muddo badan ugu dambeysay ayaa dib u dhageysan jiray erebixinta Soomaaliga iyo sida tacliintu u socoto iyadana runtii waxay waxyaabaha aan halka aan ugu mahadcelinahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo runtii ku guuleysatay maareyn mudan in la dul istaago siday ula tacaashay COVID-19-ka oo ay mar walba ay ula tacaalaysay iyo xarumaha lagu baaro iyo isbitaalaha lagu karantiiro oo dhammaan gobollada Puntland meelaha muhiimka ah laga soo bilaabo Boosaaso Baran Garowe Buuhoode intaba laga fuliyay iyo magaalooyin kale oo fara badan oo hadda iyagu ay markooda sheegi doonaan oo halkan ka sheegay waxaa iyadana muhiim ah in markaan iyadana wasaaradda qorsheynta ee 5-year plan-ki oo ka duwan sidii hore loo sameyn jiray oo ah si dawladdu hadda ku shaqeynayso oo mashaariicda horumarneed ay la dul istaagayay ay ku shaqeynayso mid naga horreeyay wuu jiray laakiin markaan tix raacnay xilligii la sameeyey xilligii Cabdiraxmaan Farool ahaa laakiin dabaqadiisa iyo ku dhaqankiisa aad u hirgeliyay laakiin waxaan rajaynaynaa inuu baahi sax ku qotamo dawladdiina ay ku shaqeyn doonto haddii la helo haddana ay la jaan qaaday oo ay ku shaqeynayso iyadana waxay ahayd milestone muhiim ah oo iyadana aan rabo inaan xuso runtii waxyaabaha horumarka oo la socda waxa weeye waa waajibkii dawladda saarnaa oo ay gudanayso sanad walbana waxaan rajaynaynaa in intii la qabtay in ka badan la sii qabto waxaan Soomaaliya guud ahaan u rajaynaynaa in horumarka Puntland ay gaarayso mid la mid oo ka wanaagsan sida madaxweyne xasan uu sheegay weliba gobollada si ka yar ay ku gaaraan waxaan halkan ku tababarnay shaqaale fara badan oo isteediyada ka mid ah Jubbaland baa halkan ku tababaray waxaa maalin dhaweyd halkan ka tegey agaasimayaal iyo khubaro koonfur galbeed ah oo wasaarado 5 ah la shaqeeyey waxaa la siiyey dhammaan habraacyada iyo dukumeentiyada iyo siyaasadaha ee wasaaraddu ku shaqeynayaan oo aan rajaynayno iyaguna inay dabaqi doonaan waxaan sidoo kale heshiisyadaas kuwa la mida la galnay Hirshabelle xilligii Waale galmudug waxaa socda wada shaqeyn joogto ah oo dhinaca maamulka iyo dhinaca amniga iyo dhinaca siyaasadda ah waxyaabahaas waxa weeye waxyaabaha aan rajaynayno inay Soomaaliya ay noqoto dawlad degan oo federaal ah oo state walba dadkiisu ay adeega ay u baahan yihiin ay dawladdaas statekaas ay ka helayaan maamulka federalismku waa daadejin iyo dhaweyn adeega dawladnimada ee dadka marka waxaan rajaynaynaa in dadka loo adeego dawladdu u dhawaato dadku aysan dawladda meel ka dheer u raadsan ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa in Soomaaliya khilaafaadka siyaasiga ka jira iyo ismarwaaga ka jira ilaahay inuu fududeeyo waxaan kaloo u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed khilaafka xilligan iyo xilliyada soo socda kulligiis shar maaha maxaa yeelay dalkii baa dhismaya markuu dalku dhismayo waa khasab kala aragtid wanaan baa jirta waa la isqabanayaa nin walba lexjeclaa ku jirta nin walba si qurxoon isagu u arko inay sax tahay ayuu ku doodayaa ugu dambeynta marka haddii dadka qaybtiisa ay sugi waayaan meesha loo socdo oo ay yiraahdaan ma gaari karnay waxyaabaha qaybtooda aan ka tanaasulno hadhow way dib ugu soo noqonaysaa marka waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed dawlad disku degdeg ma aha waxaa la rabaa in si sax loo dhiso oo tallaabo walba meesha ku habboon la dhigo ilaahay idinkiis waqtiga ilaahay ay qaadanaysaa laakiin mar rabno intay dawlad noo dhisanto hadda mar walba in yiraahdo dib baa loo noqonayaa hadda waxa dadka qaybtiisa 19 waxay sheegayaan kalsooni darradaas inaysan soo noqon waxaa saldhig u ah nidaam dawladeed oo sax ah oo fadhiyo inaan yeelano oo qof walba uu garto meesha kaga aadan dawladda iyo dowrka uu ku leeyahay aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi